Tiyo maalmihii ugu dambeeyay si habsami ah uga socdeen xaafadaha galbeedka ee degmada ganacsiyeedka Wajaale ee gobolka Gabiley biyo ballaarin loo sameeyo xaafadaha galbeedka ee degmada Wajaale ayaa waxa xusid mudan in labadii maalmood ee ugu dambeeyay biyo gelinta xaafadaha galbeedka ay si habsami ah u socotay haddaba qaar kamid ah qoyska ilmo Xaaji Daahir oo iyagu kamid ah qoyska degan xaafadaha galbeedka ee degmada Wajaale ayaa waxay xuseen in ay iyagu bixinayaan dhulka laga dhisayo taangiga biyaha ee waraabinaya xaafadaha galbeedka kuwaasi oo sheegeen inay beertoodu ka mid tahay meelaha taaga ee ku haboon meesha laga dhisay kaydka biyaha haddaba qaar ka mid ah qoyska ilmo Xaaji Daahir oo maanta la hadlayay telefishinka caalamiga ee Badda Cas 24 TV ayaa waxay sheegeen inay wasaaradda horumarinta biyaha ay ku wareejin doonaan dhawaan dhul laga dhisayo taangiga waraabinaya xaafadaha galbeedka ee degmada Wajaale waxaana ay sheegeen sida tan halkan waxa weey beertayadii maanta waxaan u nimidnay dhul bixin aan dawladda ugu caawinayno maadaama dawladdii wadadii ay soo mariyeen biyihii beertayada annaguna waxaan ugu deeqaynaa meeshii taangiga lagu sameyn lahayd magaalada dhinac walba ay kaga cabi lahayd oo maanta halkan ugu nimid saanu halkii aan taangiga la dejin lahaan u siinano ayaan halkan markaa beerta waxaan ugu talagalay taangiga in halkan beerta laga sameeyo oo bixino maanta maadaama ay xaafadaha galbeedku ay biyo la'aayeen oo biyo loo baahan yahay galbeedka oo dhani biyihiina loo wada baahan yahay dhammaan dhinac walba sidaa darteed ayaan u bixinay dhulka waxaan maanta u xaflad aanu bixinayno oo lagu dhaax dhigayo taangigii galbeedka magaalada xaafadda Xaaji Daahir biyihii magaalada maadaama ay dawladda ay keentay biyo gelintii oo caafimaad taa maanta qoysa tahay ee ay tumbooyin geliyeen waxaan anagu ugu deeqaynaa taangiga halkii biyaha laga dhisi lahaa halka ku haboon beertayada waxaan diyaar u nahay inaan bixino laga dhiso halkii biyaha ku haboon maadaama ay tahay halkii joog ugu sarreeyay ee ugu dheereed magaalada waxaan diyaar u nahay horumarka mar walba horena waxaad ogeydeen inaan wadada samaynay wadajayda oo maadaama xaafaddu ay kala xidhnado aan meel loogu baydhaani jirin inaanu anagu gaara aanu dhignay ciiddii ka bacdina ay dawladda hoose ay cagafyadii marisay marka maantana waxaan diyaar u nahay inaan horumarka ka qayb qaadanno aanu bixinno dhulka taangiga biyaha laga dhigayo geesta kale waxa iyaguna arrinkan soo dhaweeyay isla markaasina u mahad celiyay qoyska ilmo Xaaji Daahir qaar ka mid ah odayaal dhaqameedka xaafadaha qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waliba haweenweynaha ku dhaqan xaafadaha galbeedka ee magaalada Wajaale kuwaas oo qoyska ilmo Xaaji Daahir ku bogaadiyay sida wanaagsan ay ugu wareejiyeen dhulka laga dhisayo taangiga biyaha ee waraabinaya xaafadaha galbeedka kan waxaan maanta kaga hadlaynaa baahi biyood oo ka jirtay Wajaale oo ay xukuumaddu tallaabo ka qaaday isla markaana galbeedku ay biyo la'aanta ay lahaayeen waxaan u mahad celinaynaa ilmo Xaaji Daahir oo halkan ku tamarrucay oo bixiyay halkii ugu haboonayd ee istiraatiijiyad ahayd ee magaalada galbeedku biyuhu meeshii ugu haboonayd dhulkoogii ku tamarrucay oo waqfi u bixiyay iyagoo kalgacal u qaba wax soo saarka iyo horumarka degmada waanu ducaynaynaa ilaahay khayr siiyo waxa lagu wareejinayaa maamulka degmada localka halka ugu haboon weeyaan aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa bulshada reer Wajaale waxaan u sheegaynaa in lagu tamarrucay oo walaaliheen bixiyeen intii la doono ee distance noqonaysa taangiga biyaha meesha uu noqdo ay lana keeni doono biici aariska qolada hawlaha guud iyo iyaga sakaashanaya local government waxaan ku soo dhaweynaynaa inay la wareegaan mas'uuliyadda dhulka taangiga biyaha la nooga dhigayo xaafadaha galbeedka oo bilaa biyaha oo sanadadan babuuqooda iyo hadalkoodu taagnaa bilaa biyo waa xaafadan oo toga ilaa iyo controlkiya oo bilaa biyaha ummadda intaa leegna gasho maadaama ceelkii biyihii loo soo geliyay Wajaale in galbeedkana loo geliyo ayaanu aad iyo aad iskugu tagnay dadna ay lacag u ururiyeen oo hantidoodii ururiyeen ku tabarrucayaan ila Sheekh Daahir waa sheekh beledkii deegaanka waa awliyadii deegaanka maanta isagoo cidna qasbin oo xora wuxuu ku tabarrucay taangiga iyo deyrkiisa halkii laga dhisi lahaa oo beertoodu magaalada ugu dheertay ayuu ugu tabarrucay xaafadaha galbeed magaalada Wajaale.
waxaana ku wareejin doonaan howlaha guud wasaaradda biyaha iyo maamulka magaalada Togwajaale ay ku wareejin doonaan manayd intaas oo dhawaan oo manhay ilaa imika biyo ma haysano walaalka iyaga dhulka nasiyayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa waan u mahadnaqaynaa walaalaha iyaga muslimiinta aan waxaan leenahay nagu soo taageero walaalka iyaga nasiyayna aad baan ugu mahadnaqanaa khayr Allah hasiiyo Qadar Cabdilaahi telefishinka caalamiga badda cas 24 TV degmo ganacsiyeedka Wajaale ee gobolka Gabiley markasta meel kasta iyo waqti kasta badda cas 24 TV kala soco wararkii u dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan badda cas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook YouTube iyo sidoo kale Twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo galno fadlan subscribe saar gambalaalka riiq barteeda YouTube sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka badda cas 24 TV waa weelka waxa aad tabayso